masaajidka ayaana dadka kaga tukan karay waan dhowahay saaxiib Ridwaan oo aad baa mahadsantahay meelaha suuqa noo maraya hadal xun qof iga soo baxa waan ninka TikTok-giisa waan ka xumay waan tacsiyadeynaya saaxiibkay Mustafa inta badan kaliya badan oo doonto waxa lagu arkaa inaad adigoo qays qaysar ka codsanaya inaad wada kulantaan amba ku soo jawaabo ummadda Soomaaliyeed waxay isweydiinaysaa Mustafa qays muxuu ka rabaa kulantii waxaan wanaagsan daawadayaal halkan garabkayga waxa ku sugan Mustafa Shamuuri oo aan nin beer dhaweed caan ka noqday barta TikTok isla markaasina caan ku noqday muuqaala uu ka duubay qays qaysar Mustafa soo dhow markuu wad ku soo dhow biishku yar Ridwaan Jufur waan dhowahay saaxiib Ridwaan oo aad baa mahadsantahay way Mustafa oo imkaan caan noqotay oo muuqaal laga duubay waa saameyn ku yeeshay inaad caan noqoto bal hadda Mustafa caanimadii yaalka kala marayaan caanimadii wallahi saaxiib waad mahadsantahay Ridwaan oo caanimadii howl badan bay arin sahlan maaha caqabado badan wax badanna runtii way ii tartay wax badanna way iga nusqaamisay maarta suuqii bulshadii mari karmayso masaajidka dad ku socoto masaajidka ayaana dadka kaga tukan karay caanimadu way howl badantay suuqaas soo samar bilaadan baa tahay cid waxba xitaa ka martii kari maysid oo ilaa baahiyad haday way howl badan tahay waa inaad suuqa markaad marayso aad liidka raacdo saaxiib liidka marka arin aan runtii waa arin sahlan ma hayo hawshaydu ma sahlana oo hawshan caanimada la yiraahdo way wax khasaaro kala soo gaaray inta aad ku jirtay nimka barta TikTok tad caan ka noqotay bal wax sida dhibaatada ugu weyn ba kugu noqday waa noo sheegi kartaa sidoo kale dhanka faa'iidada markaynu eegno faa'iidada sii soo kordhiyay ma oran kartaa ha wuu ku sheegi karaa wallahi runtii magacaygu kor buu qaadmay dad badan baa bartay kuwa dabada jooga oo Soomaali fara badan baa bartay oo caana iyo dad madaxaba oo ila soo xiriiray way jiraan oo faa'iido ay yeelatay ilaa taas oo bulsho badan baa igu soo xidhantay talabaadna waxay tahay in dadkii muhiimadeyda labaad waxay tahay waa in maartay xaqii bulshada dhexdeeda caqabado horta saasiga lama soo kulmin dadka hadallada iska ka yoodhanaya ama kumatiga ama meelaha suuqa noo maraya hadal xun qof iga soo baxa waxba taa halkan ka sheegi maayo qaybta xumaanta ma soo qaadanayo walaala oo kumatiyada laftooda ku xaga wanaagsan uma runtii ka soo raaca oo ma fiirsado dadku waa walaaladay ummadda Soomaaliyeed waan jecelahay Ridwaan marka runku sheego meel kasta joogan gudaha iyo dibadaba salaam baa walaaliga mudantiin yaan leeyahay kowle laakiin arrinkaygan hoos loo eego TikTok iyo falowda TikTok-ayga kor loo qaadan leeyahay Ridwaan runtii Mustafa nin kale isna wax jira Shamuuriya oo ka yar horeeyo isagana Muqdisho caan ka noqdo hal week 1 milyan ku gaaray ninkaasi bir dhaweyd shirkadii TikTok taxiraad ba ka saartay saydo aragtaa waan ogaa walaalo ninkaasi waa ninkii tudhi horeysay wax liigu weydiiyay aniga leeydi ninkaasi waa ninkan magaciisa runtii meesha ku yimiba aan ku qorxay ee la weydiiyay leeydi Shamuuriga ma taqaana anna waxaan Shamuurigu adan qiyaaso wax yar oo qurux badan markii soo shaqeys qaysar ku weydiiyay isma markaad ku tiri waa magac yar oo qurux badan magacana runtii waan micnaystay waana micnaystayba ninkan uu iskala baxay ninka kale saaxiibkiin anigu waan macneeyay bulshadii baan soo bandhigay inuu sidaa yahay jeclay ma ku oo wax yar oo qurux badan yahay marka waan u micneeyay ninka TikTok-giisa waan maqlay waan ninka TikTok-giisa waan ka xumay waan tacsiyadeynaya saaxiibkay iyo jamciisa bulshadii ku xidhan isaga waan salaamaya waxaan leeyahay laba nin oo Soomaaliyeed baan nahay waa walaal Soomaaliyeed ninkaasi waa walaal Soomaaliyeed TikTok-gana ha loo sii daayo isagana runtii yaan sidaa lagaga hadhin ayaan leeyahay magacan Mustafa Shamuuri ma markii aad caan noqotay baa lagu bixiyay mise ka hor baa lagu yaqaan ما والله كور لي ما أقول مقعد مصطفى اللي وريتشري لكن كومتيجا مركي مقال كيو قيصور لجاي أنا قابسي تاجنين أيا كومتيجي بيكسو قرن مركز شمورجي جرون ويا ندي ووحير قروح بدن والله قصو قرني كان هو شمورجي هرجيسة تطير بدن بس هو قري هو شمورجي هرجيسة مركان إلى هبين كي كومتيجي آخرية يعني جابي بقى أنا هو شمورجي هرجيسة كولي أيا أنا أقول نقول تيجي قرأ يعني الأرض magacan mala xaq rabba lagaga bixiyay iskaga qoraba TikTok oo Facebook markii damana ka dibna samaystay noqotaan ku qoro deewo kaasoo su'aali maalintii ku weydiiyay qaysadan daawaday waxa ka mid ahaayeen magaca Shamuuri oo ka jawaabtay wax yar qurux badan sidoo kale waxa lagu weydiiyay waanka weynaayay Allah u naxariistay sooraan xilli ku dhintay su'aalahaas markii lagu weydiiyay bal maxay sayid uga jawaabaysay qaybka uga jawaabaysay saamaynta lag bay la maslayd wallahi walaalo saamayntaas yeelanaya isma lahayn laakiin galabtii horta waan yara xanuunsanayo waqti uma hayn sikadiisa muuqaysi qabtay abwaankii sooran wuxuu dhintay niyow waqti dhaweyd oo 22 buu dhintay horta halka runtii maan waan ilowsana qaybtaas way ka baxsanayd oo bilaadan baan
shamuuriga laakiin waan garanayaa anaa galabtaa ogaan isu diidsiinaya waxaan laa ninkan muxuu kaa weydiinayaa shaksigaa ee reexamarka anaa oo isu diidsiinaan galabta isdiidsiinayay baan u idhi waa wax yaro qurux badan inuu yahay baan u malaynayaa markaa su-aasha anaa sidaa uga jawaaba si kooban oo aan markaa ogaan waan u badheedhay arrintaa shamuuriga mustafow inta badan kelibo badan oo duubta waxaa lagu arkaa inaad adigoo qays qaysar ka codsanaya inaad wada kulantaan amba uu kuu soo jawaabo ummadda soomaaliyed waxay isweydiinaysaa mustafe qays muxuu ka rabaa waa su-aal wanaagsan qays waxaan ka rabaa qays waa ninkii horta bulshadanba ii sababay inaan halkanba imaado waa ninkii keliya ee ummadda ii soo bandhigay muuqaalkaygii intaasoo wadan gaadhsiiyey waa isaga dee magaalada horta ninkan isagaa magaalada marka hore ii soo bandhigay uguna kiciyey waa talabaadee xaq baan ku leeyoo inuu ninkii adduunka ma raba horta runtii saacadda laakiin waa inuu bulshadii inuu ila kulmo oo bulshada u soo bandhigo sidaadan imika aad iila hadlaysoo kale uu bulshadii u soo bandhigo aniga dareen bay runtii taasi siinaysa intuu igala maqan yahay waa inuu shaabad bay leeyihin wax waliba shaabadiibaa ninkan igala maqan yahay mustafa waxaad doonaysaa in mar labaad muuqaal kula soo duubo uu yidhaa ninkaa wakaasoo waa arkaysaan waa digtoogarkaa imika arkaysaan sidaas waa ninkaa shaabadda igu dhufto maantana waa idinka arkaya wixii uu iga rabayna garanaysaa adigu ninkaa isagoo dadkaa u sheegaya inuu aniga maarata arrintayda u bandhigaya qays dhowr jeer baad la hadashood kiliboo duubtay wax fariino kuu soo jawaabay maaragtay qays mar buu tigtoga qoraal igu soo diray saaxib markaa lambarkaaga ii soo sheeg buuhi lambarkii waan u qoray kadibna wax jawaaba imanuu soo garaacin meel kalena waxba iima soo marin waayahay iminka fariin hadduu ku daawanayo fariin nooceed u dirlay qays waxaan leeyahay niyow horena wanigii halkaa uga sheegay la kulankayga maxaad ku diiday qays waa saxe inaad adigu ila kulanto oo bulshadu adigoo kulannay oo ina aragto oo aad waraysigaa imika ninkaas intuu rudwaan ii sameeyo kale aad ii samayso maxay ku yeeli adiga qaysow intaasoo keliya baan leeyahay nin balaaye wax kale kaa doonaya ma yihi muhiimadaydu anaa kuu warrami doona laakiin waa inaad ila kulanto baan rabaa wixii aan wax jiraa waxyaabo badan oo aanan imika halkan kaaga soo bandhiganayn laakiin la kulankayga maxaad ku diiday oo keliya baan leeyahay mustafa inagoo soo gabagabeynayna ummadda soomaaliyeed ugu dambeyn fariinta u diraysaa maxay tahay wallaahi waan salaamayaa ummadda somalilan iyo soomaali intay joogaanba kuwa koonfur jooga iyo kuwa caalamka joogaba waa salaamantihiin baan leeyahay salaanta islaamka idinku salaamaya waa muuqaalo badan iyo fidiyoyo badanaan leeyahayna way idin soo gaadheen walaalo raallihaada waa ina kor arrintayda hoos u eegtaan qof walba shaandhee hamigii aan idiin soo bandhigay aan idiin sheegayna waa ina waxay kala qabataan baan ka codsanayaa tigtogaygana kor loo qaado insha allahu mar walba la igu xidhnaado qolada saxaafaddana iyaguna inay runtii iga warhayaan ayaan idinka codsanayaa saaxiibayaal mustafow anoo soo gabagabeynay waraysigeena markii intaanad imika bartan tigtogta ku soo biirin ka hor iyo iminkood ku jirto bal farqi noocee u dhexeeya wallaahi saaxiib farqi weyn baa u dhexeeya dee qof adduunkao dhan laga aqoonsan iyo qof shaksi hebel oo qofkii garanayo ka soo horbaxa un salaamaya ma isku mid baa saaxib iskuma dhowaa waa wareer waa farqi weyn islaanta joogta qolkeeda yar fadhida halkee joogta ayaa aniga magacayga garanaysa way garanaysaa saaxiib halkaa faa'iido weyn bay iga tahay haddii ay waxqabad noqoto iyo haddii aan taraag u baxo aan gobol kale tago wax badan bay qabanaysaa in soo dhoweyn badan inaan kala kulmaa suurtagala oo cid badan laygu qaabisho waxaan in wax laygu siiyaana way dhici kartaa iyadana oo taasina oo wax dhici kara oo maamuus iyo soo dhoweynin badan inaan kula kulmo waa suurtagal khayr badan waynu kala kulmaynaa bulshadana waan salaamayaa dhammaantiin rudwaan adinkana waan ku salaamayaa saaxiib wada shaqayn wanaagsan baan leeyahay rudwaan jufo ninkaana waa nin bays buu leeyahay waa nin maaragtay ka mid ah saxafiyiinta somalilan ha laga warhayo ninkaana rudwaan jifa la yidhaha waqtigaa uu runtii soo siiyeyna wuu ku mahadsan yahay runtii